إن عن كتشنو ما دام كسو كردي لزوزاريه بدنك وتاريخ خلدن وشاقي ويرينا ورا إنا كتر سنيد مقالة الدردبة marka anaga ka xun oo cambaarayna oo taariikhdii sheegayna Soomaalidu dirrabahaan aan kulanno taariikhdii dirrabana iyo sida soo jireenkeegii odayaashii maadarta naga waaweynaa horta Allah khayr ka nasiyo waxaan halkan iskugu imanay waa dhawaqa ra'iisul wasaaraha ka soo baxay baa aad noo damqay aad iyo aad baan u cambaaraynayna hadalka minaan buu ku yiri soo jeedku ma oran هذا السوجيت يقول ما تسمى ورمالي هذا كان وأمسنا إنه منام كيلو سوجيت بكون هذا الكا ورمت بل الله صار ورما بل هذا كينام ورما قاعدين وما قاعد ما حضايل هذا شجان يسحق أنت نبتقلنا قيميننا وإذا جركي ومتقنا مقع إثيوبيا نوليننا وقيميننا هكلامو صدق دقة وقلامو رالي قليل هكبحيو odayaasha dhaqanka beeraha Soomaaliyeed ee magaalada Diradhabe ayaa shir muhiim ah ku yeeshay magaalada Diradhabe kaas oo looga hadlayay hadalkii uu dhawaan jeediyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo ku sheegay in magaalada Diradhabe ay ka tirsanayd deegaanka Oromada shirkan ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka gaar ahaan ugaasada beeraha Soomaaliyeed ee magaalada ayaa waxa hogaaminayay ugaaska beesha gurgure ugaasiya Daawud iyo ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim odayaasha dhaqanka ayaa si wada jira u sheegay inay hadalka uu jeediyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu yahay mid aan xaqiiqo ku salaysnayn isla markaana dhaawacaya midnimada iyo wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan magaalada Diradhabe waxay sheegeen in magaalada Diradhabe ay ahayd isla markaana wali ay tahay magaalo Soomaaliyeed oo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba qayb ka ah deegaanka Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sida ku cad bayaanadii lagu aasaasay nidaamka federaalka Itoobiya sanadkii 1990kii odayaashu waxay baaqeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu hadalka raaligelin rasmi ah ka bixiyo hadalka uu jeediyay si loo dhowro sharafta iyo wada noolaanshaha bulshada ku dhaqan magaalada Diradhabe waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan isku nimaadnay in maadartay Soomaalidu dirrabahaan aan kulanno taariikhdii dirrabana iyo sida soo jireenkeegii odayaashii maadarta naga waaweynaa in taariikhdeedii aan ka hadalno oo macnaha maadartay haddana aan hal meel waxaan isku wada ogaano taasaan isku nimaadnay kolley inaan sidaas shirkeena aan u fahantaan maanta isugu imanay waa taariikhdii Diradhabe in aan ka tashano maadaama ku soo kordhay ra'iisul wasaarihii wadanka oo taariikh khaldan oo sheegay uu yiriina ورا إنا كتر سنيد مقالة الدردبة marka anaga ka xun oo cambaarayna oo taariikhdii sheegayna iyana isugu imanay maanta Soomaalidiina alxamdulillah waan dhannahay maanta Soomaalida Diradhabe kulli hadhow toole baaq wada jir ayaa laga soo jeedin wixii aan ku heshiino marka hore in aniga nii soo wareejino oo taariikhdiina wax laga sheego oo baabayaashii baa jooga waaweynaa la iyaa wala jooga magaalada ku dhashay marka aniga nii soo wareejin doona haduu alla yiraahdo in taariikhdii wixii oo dhan ba laga sheekeeyo kadibna wixii aan ku heshiino waarinta waxaan ka tashanaynaa baaq wada jira aan caalamka ogeysiino oo afalba laga hadlayo إن شاء الله وأنت واحد معناته سكوي مرة ما سنتين أنت تكسر جبتين تكسر قبل شان شركة. horta Allah khayr ka nasiyo waxaan halkan iskugu imanay waa dhawaqa ra'iisul wasaaraha ka soo baxay baa aad noo damqay aad iyo aad baan u cambaaraynayna deegaanka Diradhabe intii aan ku garaadaysanay dadku deegaanka Soomaalidu ay degto qabiilada dadka u sokoyay halka dhangagal leeyaado iyo isana gurgura awraaja ku taalaysa Soomaaliya sidaasayna ahaan jirtay oo anagu ku soo taariikhaysan ku soo gaarnay deegaanka Diradhabe ma wixii haadi ka horeey anagu Oromo ma naray maantana inuu isagu ra'iisul wasaare isagoo madaxweynihii wadanka ah oo maanta dalka u talinaya inuu yiraaho Diradhabe maxay bay ahaanaysaa Diradhabe annagaale waxaanan u iskugu imanayna maanta waa Soomaalinimo deegaanka Diradhabena waan u midaysanahay waan u halgamaynaa anagu wadankana annagaale shalay ma wada maamula oo wada daga iyo hadhig baan tiri inuu maanta kolba mid u yimaado maaha annaga deegaanka Diradhabe sidii ay imanka nolol dhigay haday ka badilanto annagu ma qaadan karayna waan cambaaraynayna isagana ha ka noqdo warkaas annagu Soomaali dhamaanteed daalna sidaas aan ku soo gabagabeeyaa بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد waxaan ka hadlaynaa taariikhdii Dirdhaba waxay ahaan jirtay iyaan ka hadlaynaa waxa weeyaan Dirdhaba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed magac sumad bay lahayd magaceeda sumadda waxay ahayd Ciisana Gurguray ahayd Ciisana weligeed ilaa mililig ilaahay la sidaasay Ciisana Gurguray ahayd Ciisana Gurgurana loo yiqiin magac kale oo magac agdhig ma jirin intii ay la sidaasay amxaarka يا مامول جري لبد وجاس بوحي وجاس حسن نبوي لتلني نوتشين أنت وادق وجاس بوحي وحايست وجاس حسن يا حايست تاريخ تابع إلى هالدير دبا واتوسو جيران تكلا إلا بعض دير دبا وحيل هاني سي لحظة كل كتاب برلمان السمية دير دبا كبح أو تجا برلمان تجا تكس دورش كبح دير دبا وبرلمان تجا السمية أرسبت تجا السمية waxa ka soo baxday Soomaali qolo kale kama soo bixin kun iyo 900 iyo 750 waxa ka soo baxay cilmi nuur ninka la yiraahdo iya ka soo baxay barnaamijka tagay koob iyo 60 kun iyo 900 iyo koob iyo 60 waxa ka soo baxay Cali Diiriye iya ka soo baxay oo barnaamijka tagay kun iyo 900 iyo koob iyo 65 waxa ka soo baxay Faarax Xaaji Cali magaalo Soomaaliyeed bay ahayd ninkii kama soo bixin marba iyay Soomaalidu nin axbaar dhigtay Soomaalida ba afar isku sharaxday way isjabiyeen ninka axmaar baa helay haday jirto walaahayaga ormo may helaan axmaar baa ka soo baxay markaa taariikhda bileed Dirdhaba waa tu soo jiraan ta kale ee labaad waxa jira kabaabigeega waxa jira garaada jiray hal nawaaxi halka ku taalo iyo nawaaxigeegaba Soomaali bay ahaayeen waa la wada hayaa warqadihiigi way jiraan Soomaali baa taariikh dheer bay leedahay Dirdhaba sida iyadoo ah taariikhda iyadoo oo leh Ilaahay la salaasay ilaa inta ay labada ogaas Xasan iyo ogaas buuxin ay ka talinayeen iyo dargigii kolkuu dhacay inta aan sheegay taariikhdu way ka horeysay dargiga yaa la joojiyay barnaamijka la tagay laga dooray Dirdhaba yaa la joojiyay yaa la joojiyay dabada dargigii bay noqotay dargiga waxa maamulayay Soomaali baa maamulayay kow Maxamed Jarmal baa maamulayay Maxamed Xuseen inka la maamulayay bookada sabaadana waxa maamulayay Xuseen Ismaaciil magaalo Soomaali baa maamulayay ka tirsan wax garab jooga iyo magac u dhigmo magaca Ciisana Gurguray ma jirin hadii Ilaahay laga helo kolkii ay soo gashay yaayigtuna Maxamed Jarmal ko ka dhacay waxa tagay Cabdilaahi Axmed baa tagay Cabdilaahi Axmed isagoo maamulaya iyo ugu imatay maamulka isagoo hayo oo maamulaya ugu imatay yaayigtu Cabdilaahi Soomaali baa maamuleysay kolkay u imatay Soomaali baa maamuleysay Soomaali baa ugu imatay ma jirin wax kale Cabdilaahi Axmed kolkii laga dhaadhiciyay waxa jiray waxa la dhigay abar dhooyin loo amxaar la dhigay amxaarkii kolkuu ma haysanad ma gaadhin kolkii laga dhaadhacshay waxa hadana qabtay Ismaaciil Awaadan iyo waxa qabtay Maxamuud Axmed iyaga ilaa in muddo idil soo waday kolka dabadeed baa iyaga laga joojiyay kala Tigray galay magaalada Dirdhaba taariikhda bay leedahay ta kale ee labaad sidaan u sheegay garaada jiray halkay ku taalo iyo nawaaxigeegaba Soomaali bay ahaayeen waa la wada hayaa warqadihii way jiraan waxa weeye magaalo Soomaali bay ahayd wax kale oo garab tali ma jirin magaca Ciisana Gurguray magac u dhigmayo ag joogi ma jirin imika uma maqlayna shirka dharaarta uu yiri ma oran malas ma oran Dirdhaba Soomaaliya Oromaal ma oran Abbaas Sahay baa yiri shirba Dirdhaba ku shir aan ku jirnay waan joogay anu shirkan ku jiray waan banaanbaxma wixii Dirdhaba Soomaali mala annaka laan wixii mufrankii la cunayad moodaysan Dirdhaba laba sano kolka laba sano banna waxa haynaysa Oromo Soomaali laba sano banna Oromo haynaysa banaanbax baan ka sameeyay waan diidnay wiska kacay warku ka kacay dhaari damba banaanbax baan ka sameeyay weyn baan ka sameeyay Dirdhaba taariikhda bay leedahay xaga ku baniga Dirdhaba jibriyadeeda waxa haysanay Soomaali ilaa ma ayso ilaa dabanle waxa jibri ay leedahay Soomaali ba haysanaysa qolo kale ma jirin wax kale oo garab jooga ama la sheeganay ma jirin Tigreega horti ninka yiri sida ma ahayn wax kale oo hadal oo Dirdhaba ka jiray ma jirin Tigreega baa sida yiri
unbaa keenay tareenka Soomaali baa keentay kolka nin cadaana waagi hore helisay dhaxdii hore ka ahaan jiray madax kolkii dambe waxa ka ahaa cabsiyo gasle iyo ila dirlaba ila arsabaya tirtirka ka ahaa dirlaba waxa maamulka Soomaali unbay ahayd waxa dusha sare ka meel ahmar unbay ahayd ma jirin bas Oromo bal waa ka hela soo dhigan Oromo oo taariikh kule la soo dhigo ma jiro magaca dirlaba ag joogeen balal keeno ma jiro taariikhda bay dirlaba lahayd kolka waxa yiri malasna ma oran hadalka waxa yiri waa abaasahay waan joogay anu shirka waan ku jiray waan ka kacnay banaanbax baan ka sameynay wiiska sara kacay imika sidaa bay tahay takale labaad abiyu hadalka minaan buu ku yiri soo jeedku ma oran hadal soo jeedku yiri ma Soomaali waa Roomaalida hadalkan waxaan u aaminsan inuu minaan ku yiri soo jeed ba ku oran hadalka takale labaad abiyu nabadda u baan oo colaada u fiican jeceliya Itoobiya areergeeba nabad ka ahayd areergeena waa ka iminku isku dhifanaya labada shicibkii Soomaaliya shicibkii Oromada walka waa arintu waa sida taariikhda bay dil dhabana lahayd iyo dadka Soomaaliyeena Soomaali bay ahayd labada ogaas baa ka talinaysay dil dhaba wax kale oo u dhigma oo Soomaalida garab joogsado oo ana la yidho sheegtay ma jirin waan ku dhashay anu waxaan jiraa 88 waxaan ku dhashay dil dhaba xaafadda Gadadbo baan ku dhashay 88 ka jiro wax sheeganaya oo hadalka abaasahay ma oran malase abaasahay baa ilo dil dhaba ku yiri oo ka horeeyay ma jirin Oromad bal la soo saaro Oromo bal haba keenan ba Oromo magaca dil dhaba magac u dhigma haday lahayd sheeganaysa ha keento inta aan sheegayo dhanna kolka ahmaarku soo baxay may soo baxdo haday dil dhaba tiil ahmaar baa ka soo baxay markaa kulkii Soomaaliya jeesay may ka soo baxdo ma jirin Oromo wax Oromo leh ma jirin dil dhabana wuxuu ku joogay biikeega dhangaga meesha luuqa yare foodinta leh halka buu ku taagan yahay biikeega dil dhaba ilaa inta ka sugaysan Soomaali harti iyo dad baa u leeyahay Soomaali kolka dil dhaba waa yaani ogoladii obriyoogi la soo gashay dagaalkii la jabisay maxay ahayd dargii la jabisay umbu tani abaal ugu cesho yiri dil oo ila leedahay ma jirin wax la jiro taanbu yiri yaani abaalkii ay kula soo galay dil oo Soomaali umbu yiri ma jirin Soomaali wax garab dhigma wax la sheegta wax hadii Ilaahay laga helo magaca dil magaca ah oo matal garab joogi ma jirin magaalada Soomaaliya baa iska lahayd الله بركاته سلوس وزيد شيء هريين يقاسيس بيسوي شيئين إن شاء الله وحمان تعصبه دول كي اللي مجرو أرل عصبه القبسني إنه مجرتو ميل جديد وما أنت لو مر ميانا ما هنتربه وعويا قيل وابن هدود دردري هاي بهد أرن كنا دمحو سمين بهد وحويجي رئيس الوزراء وارين تاسيو شو زين هكلامه tirabana Oromo ma gasho oo mana gali doonto horeen ugu jirin meel la yaqaanay hayd cid walba way garanaysaa aqoon kama hayso uu qaldamay yaan Ilaahay baan qaldamin horta qofka bilaadanka uu qaldamaa hadalku ka siibta ra'iisul wasaaraha Itoobiya u talinay sharafta leh waxaan leenahay ka codsanaynaa hadalka waan dibsanay meel nabad u culgelinaya kelmad baas aafaysa umada iyo degmada kelmadda ka soo baxday malaha dacolka u roonay nabad uba baroonay waxa weeye tiraba maanta waa nabad Soomaaliya dhulka Itoobiya intaan ka naalina waa nabad Oromiya Itoobiya Oromiya Soomaaliya nabad weeyaan wuxuu doonay colaad inuu ka abuuro kelmad baa col keentay dib oo la isku waayay arlada iyo maatida iyo makastu ku gubataa sida darteed waxa weeyaan waxaan leenahay ونسي متقنا أنغو شرفينا وليبا محاكو إرادا أنغو إساق شرفينا نبتقليدنا قيمينينا وإذا جيركي متقنا مقع إتوبيانا نولينينا وقيمينينا هكالامو سيدك دقا هوغالامو رالي قلين هكابحيو هديو نضمعينا ده سيفي عنها نوغوش يقو متقنا والدين تمعي الصومالي هدنا يرادو ترميس كاقول هاي يرادو سيعد ويد عذا لكن ما أنت مال ترى Soomaali لقول مرمو أضي هوري أضي تنبه عمرك جرت والله يقانا ترى بقول لي السيد ويان ما تقانا أنت جرت إلى صدنية لما تني تود حيسا وحويان بوك بيان لا أو تاريخ مقبودو
maxaan ku idhaahdaa taariikh baa jirta aanan ismasaxayn oon la dafiri karayn shalay ma iman meel cusub maanta ku kulanayna ma ahayn tirabo sidaa darteed waxa weeyaan madaxweynuhu raaligelinaha ka bixiyo ra'iisul wasaaruhu waanan ka xunnahay maxaan ku idhaahdaa waana sharifaynaa wax kale kaga jawaabana qalad laguma saxay anagu ma qaldamin maanta waxaan codsi baa samaynaynaa sidaa darteed wixii kii horreeyay kii u dambeeyay ogaas horreeyay ogaas dambe garaad iyo mataqaanaa oday guhaana intaba waa la hayaa taariikhdooda waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha sharafta waxaan ka codsanaynaa inuu si dhaqso uga laamo arrintan raaligelin loo bixiyo. Assalaamu calaykum.